بسم الله الرحمن الرحيم ومركله iyo barnaamijkeeni golaha buugaagta xalqadan waxaan kaga sheekeyn doonaa haduu Ilaahay yiraahdo buug anigu aan qoray oo la dhaho Junuban ma wara safana buuga aan qoray Soomaaliga goore dadka Soomaalidu kulligood way wada akhri karaan way ka aragti dhiiban karaan daliishiisa iyo dheeftiisana way sheegi karaan laakiin lambar aad u badan oo dadkeena Soomaalida ah ma garan karaan Carabiga maxaa Carabi wax loogu qoraa iyo af Soomaali maxaa loogu qoray oo laga yaabo hadda adiga daawanaya inay niyadaada ku guuxayso waa arrin runtii in badan aan ka soo hadalay laakiin maadaama af Carabi ku qoran yahay waxaan rabnaa in nuxurkiisa aan muddo kooban halkan ku soo gudbino sida aad ka garan kartaan buuga ciwaankiisa waxaa la dhahaa haddaan af Soomaali isku dayo sababtoo ah in luqad kale loo turjumo ama loo rogo way wax sahlan ma aha wax aad u adag gaar ahaan dadku isku mid uma aha dad baa laga yaabaa in aad ugu sahlan tahay dad waxa laga yaabaa inay ku adag tahay haddana ciwaanku markuu yahay ciwaan qaab suugaaneed u samaysan wuu ka adag yahay ciwaanka caadiga u samaysan marka safana muxuu yahay safana waxa weey dhulka geedgaabka ah ee geedaha yaryar leh xayawaanaadka ay aad ugu noolaadaan duurjoogtu ku nool haday noqoto libaax haday noqoto maroodi haday noqoto gari haday noqoto waxyaabahaas marka waxa si fiican u fahmi kara Kismaayo marka joogtid ka baxid Kismaayo xagaas uga baxid koonfurta dhulkaas badamadow ilaa Ras Kamboni haluqo iyo xadbeenaadkan Kenya iyo Soomaalidu dhaxeeya marka dhaaftid dhulkaas oo dhan waa dhul ay duurjoogtu ku noolaayeen ilaa banaankan goobweyn dhulkaas Kismaayo ka sheekeynaya meel badan oo Soomaali dhulkeedana waa laga yaabaa waa dhul geedgaaba oo xayawaanaadku ay ku nool yihiin waxa la dhahaa savana sida caadiga ah waadna raadin kartaan buugaas buu ka sheekeynaya safar ka sheekeynaya 5 dawladood oo Afrikaan ah buuga qoraalkiisu wuxuu igu dhashay anoo jooga dalka Suudaan sababtoo ah anu wax xiriir la leh qoraal ma baran sababtoo ah waxaan takhasuskay waa geology laakiin qofku si siyaabaha kamid u noqdaa wax uusan filaynin marka aan qoraal noqon doono ama wax qorayo wax ma ahayn niyadeyda ku jiray oo ka fikiraya ma ahayn laakiin waxay noqotay anoo sameynaya aan isarkay marka anoo Suudaan joogan buuga bilaabay marka waxaan ka bilaabay Suudaan markaan joogo waxaan ka sheekeynayaa nolosha Suudaan waa laga yaabaa inaad adiga daawanaya maanta aad aragtay dad ka soo baxay waliba xilliyada anagu aan dhigin jiray naga soo horeeyay noloshu waxay nolol aad u adag haday noqoto dhanka deegaanka haday noqoto dhanka nolosha iyo waxyaabaha la cunayo qofka haysto iyo xagga xitaa waxbarashada aad iyo aad bay runtii u adkeyd marka la fiiriyo qof Soomaali ka baxay oo iskuulaadkii dugsiga sare Soomaaliya ka baxay oo aan lahayn lab oo aan lahayn wax walba oo la dhiganayo ay ahayd wax kaliya theory iyo aragti ay ahayd oo aan ahayn wax practical ku jirin markuu dal tago laabab leh oo macmal leh oo qofkii ay noqoto inuu dadkii wadamada dawladaha leh ka imid oo ka qayb oo la tartamo runtii iska adkaanaysa gaar markuu galo kulliyada sayniska sadarteed wax walba uu iska adkaa haday noqoto waasaan sheegay nolosha iyo waxyaabo badan oo ku hareeraysan marka waxaan kaga sheekeynayaa Suudaan qaybta Soomaalida khusaysa noloshii halka taale iyo say u adkeyd waxaan kaloo kaga sheekeynayaa ardayda Soomaalida halka tagtay qofka Suudaan ka soo qalin jabiyay wuxuu dad kale kaga duwan yahay waa dhakhtar waa siyaasi waa injineer waa siyaasi waa wariye waa siyaasi waa sheekh waa siyaasi sababtoo ah xukunkii hadda waa la bedelay laakiin xukunkii xilliga jiray dadka wuxuu u diyaarinayay qofku inuu wacyi siyaasi ay yeesho wuxuu doonaya ahaado waxa la mid ah qofku waa doctor waa sheekh waa injineer waa sheekh qofka waxa laga yaabaa marar semesterada jaamacadda kamid ah in takhasuska aad leedahay maadooyinkiisa iyo diinta aad qaato ay ka badan tahay diinta sababtoo waxay rabaan inay diyaariyaan qof mihnad uu ku shaqeysta leh sheekhna ah wacyi siyaasi ana leh waqaabkay dadka u barbaarinayeen marka waxaan kaga sheekeynayaa ardadii Soomaalida iyo ururadii meesha ka jiray iyo Suudaan waa meel aad la yaab leh taqriiban qabiil kasta wuxuu leeyahay urur reer xisbi kasta wuxuu leeyahay meel u degay Suudaan markaan joogno waxaan kaga sheekeynayaa isbedelada siyaasiga ee Suudaan ka dhacay waxaan kaga sheekeynayaa dalka Suudaan iyo suu yahay haday noqoto dhulkiisa haday noqoto fanka iyo suugaanta haday noqoto qorayaasha caanka ee Suudaantu leeyihiin waxaan ka sheekeynayaa taariikhda magaalada Khartoum oo aan joogay oo runtii 5 sano ku noolaa oo aan aad u raadiyay wargeysyada ka soo baxana wax ku qori jiray waxaan wax ka qoray dadka maadaama aan aad u taageero ama aad u jecel kubadda cagta ciyaar iyo daawashada waxaan aad uga sheekeeyay kubadda cagta Suudaan gaar ahaan waxa jira laba koox oo Suudaaniyiintu leeyihiin la Mariikh Hilaal oo aad iyo aad xifaaltan uga dhaxeeyay ka sheekeeyay
kadib waxaan ka sheekeeyay calaaqada ka dhaxaysa Soomaalida iyo Suudaanta hadday noqoto calaaqada muuqaalka hadday noqoto calaaqada fanka hadday noqoto calaaqada caadaadka ijtimaaciga ee bulshada hadday noqoto aroos hadday noqoto geeri hadday noqoto yani waxyaabaha Suudaanta iyo Soomaalida ka dhaxeeya gaar ahaan marka waxaan aad u saaray heesaha gaar ahaan aad u saaray oo qofka dhageysta sulamka shandhac ama khubaasiga ah ay labada dalba ku heesaan iyo isdhaafsashadii fanaaniinta Soomaaliyeed iyo Suudaan anaga waxaan la joogi jiray Said Khalifa iyaga waxaa tagay Magool iyo tubaciya dad badan ba iyagan u heesay halka markaan ka soo tago waxaan ka sheekeynayaa webiga Niil iyo saameynta taariikh iyo dhaqan iyo dhaqaale uu ku leeyahay Afrika uu ku leeyahay iyo nimankii reer galbeedka ahaa qarnigii 10aad iyo 19aad Afrika imaneysay Afrika ay waxay dhaheen naga sheekeynay Afrika heleen laakiin Afrika bartaan qaabka webiga Niil muhiimad ugu lahaban halka ka sheekeynay kadib waxaan imanayaa dalka Ethiopia marka jid dheer oo waxa jira u dhaxeeya Khartoum ilaa Addis Ababa jidkaasaan soo maray waa 2011 bishii labaad marka dhaqamadii halka ka jiray iyo dhulkaas oo ahaa iyo taariikhaha ay xabashidu leedahay baan si fiican uga sheekeeyay Addis Ababa ka sheekeeyay taariikhda Addis Ababa si fiican uga sheekeeyay iyo wixii aan ku arkay iyo habeenadii aan joogay wixii ii muuqday baan si fiican uga sheekeeyay masjid weyn oo masjid Anwar la dhaho oo islaamku leeyihiin oo runtii aad ii cajibiyay baa isagana kaga sheekeeyay kadib waan ka soo baxay halka markaan joogo marka Addis Ababa waxaan joogaa dal Afrikaana oo aan darisnahay oo ay tahay dadkiisa inaan sheego waxa ii muuqda waxaan imanayaa herar markaan imaado waxaan imanayaa dalkii Afrikaanka ahaa oo aniga oo Soomaali ah dalkaygana gumaysta dadkaygana oo afduuban yihiin marka way isbedelaysaa luqadii aan ku hadlayay way isbedelaysaa tusaale ahaan Soomaalidu maanta Muqdisho waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed laakiin goormay noqotay Soomaalidu waxa caasimad u ahayd magaalada Zeylac waxay ku taalay xeeb Boortaqiiska iyo dad badan baa soo weeraray waa lagu noolaan waayay islaamkii iyo Soomaalidu way guureen waxay tageen herar baa xarun u ahayd Soomaalida dhammaan islaamka geeska Afrika 1887 Melekh markuu qabsaday herar ee dadka kala carreen ba hadana mar labaad mar saddexaad aan dhahe waxa caasimad noqotay magaalada Muqdisho marka waxaan ka sheekeynayaa taariikhdii badneyd ee soo martay herar iyo islaamkii iyo jabkii soo gaaray iyo sidii Soomaalidu 1887 kadib aysan mar dambe madax u qaadin hal mar ba isku dayna madaxa kor u soo qaado waa xilligii daraawiishta Sayyid Abdullah Xasan dagaal ahaan iyo siyaasad ahaan oo ah qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee ku dagaalama islaam iyo Soomaalnimo isu wiisan kadibna waxa ku xigay siyaasad ahaan SYL iyo dadka la midka ah iyo dawladii kacaanka laakiin marnaba ma aysan suuragelin inay Soomaalidu 1887 meeshii joogay dib ay ugu laabtaan mar waxaan ka sheekeynayaa taariikhda herar iyo xabashidii qabsatay iyo masjidka ugu weyn herar si loogu bedelay kaniisad qofkii aan macluumaad badan ka aqoonin taariikhda herar wuxuu halka ka arki karaa magaalo aad qurux badan aad u wanaagsan ee Soomaali lahayd ama islaam lahaa maanta laakiin gacmahooda ka baxsan haba ku magacoonadan dad islaama kadib waan imanayaa dhulka Soomaali galbeed baan soo galayaa magaalada Jigjiga iyo taariikhdii soo martay iyo say ahayd iyo 77 wixii ka dhacay iyo si dadkii loo gumaaday iyo si loo burburiyay iyo maanta say ahayd iyo xilliga xitaa markaas aan qorayay maamuladii ka jiray iyo waxaan ka sheekeynayaa kadibna waan soo baxayaa jidkaas Wajaalaan soo qaadayaa waxaan imanayaa magaalada Wajaale say ahayd beerihii say u ahayd dhabar dalaga Soomaalida heesihii badnaa ee loo qaaday iyo suugaantii baan ka sheekeynayaa kadib waxaan imanayaa magaalada Hargeysa oo qof kasta oo Soomaali qalbigiisa qiimo weyn ku leh Hargeysa markuu qofka imaado wuxuu dareemayaa inuu joogo meel Soomaalinimada asal ka tahay oo Soomaalinimada asaga leeyahay laakiin waxaan nasiib darraa mar qaar inaad dareemayso inaad ajnabi tahay oo magaaladeeda adiga aad lahayn taas laftigeeda dareenkaas waan ka sheekeeyay kadib waxaan ka sheekeynayaa Laasgeel oo Hargeysa u dhow oo ah meelaha ugu weyn adduunka la yaqaano way baan loogu darin UNESCO sababtoo in UNESCO aad ka qayb gasho waxay u baahan tahay inaad taariikhaysta kaliya u baahan waxay u baahan inaad leedahay awood inaad leedahay dawlad inaad dadka UNESCO mas'uulka ka ah inaad wax kaga bedelan karto war anigana i'tiraaf idinkana waxaan niseenaya qof awood la tahay dad awood lahayn oo adiga si kala qaybinaysid oo si kala go'aysid wax macno badan ee markii adduunku wuxuu socdaa inuu midoobo kadib waxaan imanayaa magaalada Muqdisho saa sheegnay buug waa safar saa sheegnay waa buug ka sheekeynaya safar ka sheekeynaya magaalada Muqdisho markaan imaado Muqdisho waxaan u bixiyay taajka Soomaaliya ee quruxda badan Hargeysa ciwaankaasi wuxuu ahaa waa xudunta Soomaalida Muqdisho marka imaado qofku wuxuu dareemayaa inuu joogo gurigiisa qof kasta oo Soomaali adduunka nool wuxuu dareemayaa in gurigiisa uu joogo iyadoo laga yaabo maanta inay burbursan tahay oo dagaal iyo qarax dhiig ka dhacayo haddana dareenka uu qofku dareemayo markuu Muqdisho joogo uu ka duwan yahay
magaalo kasta oo adduunku taalo ama Soomaali leedahay markuu tago qofku ka duwan tahay saa darteed waa taajki Soomaalida magaalada Muqdisho haddaan iyada la hagaajinin oo awooddeeda la soo gelin oo salka loo dhigina Soomaalinimadu macna badan ma yeelanayso ani aragtaan sidaan aaminsanahay Muqdisho aan ka sheekeynaya marka asaaskeedii say ahayd magacan meesha laga keenay laf dhabar say ugu ahayd ganacsiga ilbaxnimadeedii dadkii yimid Ibn Battuta iyo ay kamid yihiin dhibaatada maanta haysata kadib waxaan aadayaa Kismaayo aan u bixiyay maaragtay masrax daakira yani goobtii xusuusta qofku marka carruurnimadiisa meesha kusoo qaatay kusoo koray waqti kusoo qaato aad bay u qiimo badan tahay meelaha kale looga duwan tahay Kismaayo laftigeedu waxay ahayd taariikhdeedii dadkii deganaa Soomaalida dadkii loogu yimid intaysan Soomaalida meesha imaan waxyaabo badan baan iyadana ka sheekeeyay kadib waan tagay oo waxaan aaday xagga Kenya Nairobi baan sii marayaa Nairobi iyo waxa ka jiray iyo taariikheedii iyo waxa ay ka sheekeynaya Soomaalidu si u degay ma ka sheekeynaya halkaas inkasta oo Soomaalidu ay markay dagaal dhaceen ay ku badbaadeen haddana ganacsiga weyn halka ka sameeyeen iyo saameynta ku yeelan karo sababtoo ah hal go'aan oo soo saartay Kenya oo Soomaalidu ka guuro magaalada waxay khasaarayaan billion dollar bay khasaarayaan Soomaalidu kadib waan ka sii baxay Nairobi xaggaas Uganda aaday magaalooyin badan ma sii maraya Naivasha kamida Nakuru baa kamida Kisumu baa kamida waxaas oo dhan ka sii sheekeynaya wixii ii muuqday waxaan arkay waxa yaal iyo arrimaha bulshada iyo wax kulli ii muuqdaan ka sii sheekeynaya kadib waxaan tagay xadka Uganda iyo Kenya magaalada Busia magaaladaas Busia waa magaalo cajiib ah qofka Soomaaliga ah baasaboorku raba hawato Kenyan Somali Ethiopia Djibouti Europe Mareykan wuxuu doonay hawato qof kasta oo Soomaali ka lacag baa laga qaadaa qol yar baa jira oo qofka Soomaaliga la gelinayo wax kala ma lacag baa laga qaadaa waaba qol looga qaadaya dadka Afrikaanka oo dhan way marayaan Soomaalida marka laga reebo qofka Soomaaliga cajiib mushkiladna haysta Afrikaanka waxay noo arkaan dadaan iyaga kamid ahayn carabtu waxaan arkaan dadaan iyaga kamid ahayn marka manihin meel ma haysano waxaan nahay meel walba waxaan ka nahay kaalinta labaad kadib Uganda galaya Uganda iyo wixii muuqday Jinja magaalada ay ka soo bilaabanayso taariikhda wabiga Niil oo ka soo bilowdo ilaa aan Kampala tagay oo iyadana aan ka sheekay marka muhiimaddu u leeyahay maxay tahay Soomaalida marka aan buugan wuxuu ka hadlayaa wax kasta oo ay Soomaalida leedahay buugan waan ku qoray hadday noqoto dhul iyo quruxdii waan qoray hadday noqoto dad iyo kartidii waan qoray hadday noqoto suugaan iyo gabay iyo aftahanimo waan qoray hadday noqoto ilbaxnimo ay Soomaalidu lahayd oo ay soo martay waan qoray qofka marka Soomaali u baahan iyo dhulka Soomaalida waxaan aaminsanahay inuu yahay marjic ku laaban karo oo uu ka fahmi karo dareenka qofka Soomaaliga gaar ahaan jiilka aniga maanta oo da'dayda kala ah ee ila nool ee dagaalada ku soo koray in waxa ay ku fakarayaan uu fahmi karo waxa ay doonayaan inuu dareemi karo marka buugga waxaa lagu daabacay Masar waxaa la daabacay 2018 soo baxay deegaano badan oo Soomaalida dhulka Soomaalida waxaan ugu sameeyay Daafur Muqdisho waa la sameeyay Kismaayo waa la sameeyay Garowe waa lagu sameeyay Hargeysa waa lagu sameeyay aad bay dadka Soomaalida luqadda Carabiga ay u akhriyeen meelo badan baa lagu gurfeeyay qiimeyn badan baa loo sameeyay waan ku dhiirigelinaya haddaad tahay dadka akhriya af Carabiga haddaad tahay inaad akhrido waan ku dhiirigelinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin